بربرتي لصوحي ترتلو باقي برشي غير دوما بلابو سركعة صعب soo dhawo janalkeena kubadda cagta si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee muuqaaladiina daawada share iyo gambalena hanaga hilmaaminaha qodobada aad ku maqli doontaan hadduu sareeyo ka dhiga waxaa ka mid noqon doona Real Madrid oo soo bandhigtay Tottenham laba xidig si ay kaga qaadato heshiiska ay ku doonayso Christian Eriksen ee Rakitic oo iska diiday dalabyada ugu imaanaya Manchester United iyo Inter Milan soo ugu biiro koox kale waa kuma kooxdaasi mid ku jirta kooxdaada isbarbardhig lagu sameeyay kulmadii ugu dambeeyay ee Premier League ee Arsene Wenger iyo kuwa ugu horeeya ee Unai Emery kayba wanaagsan Ronaldo iyo Higuain oo hogaaminaya xidigaha Juventus ay ka qayb qaadanaya kulanka Lokomotiv yaa ka maqan yaase ka soo baxay cidna maysan ugu guuleysan in tababaraha kooxda badda cagta ee Loftus Moscow ka hadla dareenkiisa taageerayaasha Liverpool oo ku madeystay kooxaha Manchester United iyo Arsenal maani oo ka warbixiyay sidoo uu ahaa dareenkiisa kulankii ugu horeysay oo la qaato dhigiisa club Badr Efra oo isbarbardhig ku sameeyay kooxiisa ugu soo ciyaaray Manchester United iyo Juventus Pochettino Frank Giroud iyo Abraham qodobadii ugu dambeeyay wargeysyada waxyaabaha ay ku qoreen dhanka iyo suuqa kala iibsiga ayaad ku maqli doontaan qodobada iyo qodobo kale oo aan idin qarnayo barnaamijka ayay qayb ka noqon doonaan barnaamijka hadduu sareeyo ka dhigo intuu hawada ku jiro waxay la socodsiinayaa anigoo ah Cadceed Deeqsi maani oo ka warbixiyay sidoo uu noqday dareenkiisa kadib kulankii ugu horeeyay ee wada qaateen dhigiisa club xidiga kooxda kubadda cagta ee Liverpool Sadio Mane ayaa shaaca ka qaaday sidoo uu ahaa dareenkiisa oo kulankii ugu horeeyay wada qaataan macalinka Reedis ee Jordan Klopp waqti aad u yar macalinka Real Madrid ayaa kooxda kubadda cagta Liverpool hogaaminaya isagoo xaliyay dhammaan ciyaartooyda iyo taageerayaasha Reedis macalinka aadka lagu jecel yahay kooxda kubadda cagta Liverpool macalinka Real Madrid haddana wuxuu walaac ku abuuray xidiga reer Senegal Sadio Mane kadib kulankii ugu wada qaataan Sadio Mane ayaa u sheegay wareysi uu ku bixiyay wargeyska Express ee dalka England sidoo uu noqday dareenkiisa kulankii ugu horeeyay ee wada qaataan October club wuxuuna yiri Mane club wax badan ayuu hadlay waxaan isiri tani way kugu adkaa doontaa maadaama anigoon ahaa mid aad u xoogan mid xoogaadgan laakiin hadda qof walba wuxuu jecel yahay taas ayaana muhiimsan waxaan u maleynayaa inuu yahay shakhsi lagu kalsoonaan karo ayuu hadalkiisa sii raaciyay Sadio Mane waxa xusid mudan Sadio Mane ilaa wixii ciyaareedkan uu hogaaminayo goollalinta kooxda kubadda cagta Liverpool asigoo Liverpool oo kaliya u dhaliyay 5 gool Rakitic iska diiday dalabyada ugu imaanaya kooxaha Manchester United iyo Inter Milan haddaba uu doonayaa xidigan inuu ku biiro xidiga kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Rakitic ayaa iska diiday dalabyada kaga yimaaday kooxaha Manchester United iyo Inter Milan isagoo rajeynaya inuu u dhaqaaqo AC Milan bisha Janaayo sidoo uu qorayo wargeysa Sports ee dalka Spain 32 jirka reer Croatia ayaa lumiyay booskii muhiimsanaa ee kooxda kubadda cagta Liverpool ayagoona hogaaminaya macalinka reer Spain ee Nigel Valverde ayaa xidigan ka doorbiday xidiga qaranka Holland ee Frank de Jong Rakitic ayaa lumiyay booskii joogtada ahaa wuxuuna dirs la noqday oo kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta Liverpool kooxda kubadda cagta ee Barcelona Nigel Valverde ayaa wuxuu ka hadlay doorbidada uu ku doorbiday inuu xidiga qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Rakitic inuu kayd ka dhigo wuxuuna xidiga macalinka reer Spain oo sheegay inuu xidigan uusan u qalmin booska joogtada ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona wuxuu ka doorbidayaa xidigii hore kooxda Ajax Amsterdam iyo qaranka Holland ee Frank de Jong iyo xidiga reer Brazil ee Arturo Melo sidoo kale wuxuu adeegsan karaa xidiga reer Spain ee Sergio Busquets iyo xidiga qaranka Chile ee Arturo Vidal haddaba wareysiga Sports ee dalka Spain ee u dhow kooxda Barcelona ayaa wuxuu sheegay in Rakitic uu doonayo inuu u dhaqaaqo AC Milan sida daraateed uu iska diiday dalabyada ugu imaanaya Manchester United iyo Inter Milan Barcelona ayaa u dhaqaaqaysa soo qaadashada xidiga reer Croatia ee Rakitic wararka ayaa intaa waxay ku dareeyaan in haddii Rakitic uu ku guuldareysto dhaqaaqida kooxda kubadda cagta ee Arsenal wuxuu doorbidayaa inuu u dhaqaaqo caasimadda Faransiiska ee Paris si uu ugu biiro kooxda Paris Saint-Germain oo taasi uu doonaysa adeega xidigan Paris Saint-Germain ayaa waxay doonaysay tan iyo suuqii xagaag la soo dhaafay soo qaadashada xidiga reer Croatia ee kooxda kubadda cagta ee Rakitic برتوا قرون بقعدي عيال